sababka saddexaad wuxuu leeyahay weydiinaya dadka geeriyooday ee qubuurta ku jira intaan qiyaamo la gaarin sadaqada laga bixiyo iyo ducada loo duceeyo ma intay qabriga ku jiraan bay ku intifaacayaan mise miisaankooda xasanaadka iyo samaadka samaha loogu qorayaayo markii aakhare la yimaadiyo miisaankay u geliyo markii qiyaamada la isla soo saara kadib unbay ku intifaacayaan mise qabrigooda iyagoo ku jirayba qiyaamo ka hor kusii intifaacayaan. su-aasha jawaabteeda waxaa weeye camalkaasi ilaahay haddii uu u aqbalo qabrigooday ku intifaacayaan. sidaasay axaadiidta nabigu tusaysaa sala allahu alayh waalih wasalam. nabigeena markii nin la aasayey dayn lagu yeeshay ee wii ku tukada saaxiibkiin waa kii abuu qataada dayntii dusha u ritay ee rasuulka ilaahay oo daynta anaa bixinayee ninka alla aaso ha lagu tukado. nabigu waa ku tukaday. abuu qataada iska hor yimaadeen meel jidkaa dayntii ma bixisay buu ku yidhi. markaasuu yihi haddun bayba ahayd. maalinkii labaad mise maalinkii saddexaad bay isarkeen rasuulka ilaahay waan ka bixiyey buu yihi dayntii. halkaa nabigu marka wuxuu ku jira xadiidkii jaabir baan filayaa inuu ahaa al'aana baradat calayhi jildatuhu, hadduu jirkiisa kulaylkii daynta ka qaboobay. daynta laga bixiyey ninkan bixiye laguma lahayne waa nooc sadaqada ka mida. haddaba sadaqada uu ka bixiyey dayntii ka guday nacfigeedii qabriguu ku helay. mid kale xadiidkii bukhaari iyo muslim ee nabiga alay slam gabadhii masaajidka xaaqi jirtay intay geeriyootay habeennimo la aasay ee intuu tegey qabriga ku soo tukaday nabigu calayh isalaatu wasalaam hadal buu yidhi markuu ku soo tukaday. wuxuu yidhi qubuurtoodu waxay ahayd kaanat mamluu'atan dulmatan, mugdi baa ka buuxay. ilaahayna wuxuu ugu nuurinayaa ugu iftiiminayaa salaada